dooxa magaalada Burco oo kamid ah dooxyada ugu waaweyn Soomaaliland ayaa waxa muddooyinka u dambeeyayba biyaha soo mara dooxaasi magaalada Burco ay saameyn ballaaran ku yeesheen guryaha ama xaafadaha ka agdhow dooxaasi waxaana biyaha ka soo rogmada dooxaasi ay baabiyeen isla markaasna ay galaafteen guryo badan oo kamid ah guryaha ka agdhow dooxaasi xukuumadda talada haysa oo hogaamiye madaxweyne Ziilaanya iyo maamulka gobolka Togdheer ayaa iyagu saacad ugu fashilmay inay wax ka qabtaan khasaaraha ka dhashay biyaha soo mara dooxaasi taasoo galaaftay guryo badan oo ka agdhow dooxaasi waxaana dadweynaha ka agdhow dooxaasi ay warbaahinta u sheegeen inay marar kala duwan ay baaqayla dhaaneed gaarsiiyeen maamulka gobolka Togdheer iyo xukuumadda Soomaaliland isla markaasna waxa ay tilmaameen dadka degan xaafadaasi inay maamulka gobolka Togdheer iyo xukuumadda Soomaaliland ay ka dhagaadeegtay inay wax ka qabato dhibaatada dooxaasi uu ku hayo xaafadaha ka agdhow dooxaasi dadweynaha ka agdhow dooxaasi ayaa dhanka kala baaqu diray hay'adaha caalamiga iyo waliba kuwa maxalliga ah isla markaasna ugu baaqay inay ka qayb qaataan sidii loo badbaadin lahaa guryaha ka agdhow dooxaasi waxaana hadaladoodii kamid ahaa sida tan kaxiga magacayga waxa la yiraahdaa Axmed Cilmi waxaan nahay dadka degan xaafadan siiba gobolka oo dixda raacsan dadku waxay nagu hayaan nuqsaan xoog leh oo ay guryihii iyo hantidii iyo mid walba waxyeello ku hayaan marka daadadku yimaadaan waxaan u baahanahay in si wanaagsan ama dawlad ha noqoto ama hay'ad ha noqoto mucaawino looga geysto waxaan haynaa dooxa qarkiisa yaala daadadku marka ay soconayaan ee soo dhacaan guryahayaga waanu ka baxnaa waxaanu u baxnaa dibadaas oo waanu ka baqanaayo maatadu way naga yaacdaa oo way baqataa haraati xoog leh buu daadku markaa nagu haya waa dooxina waa nagu kay waxaanu sheegaynaa ummadda Soomaaliland waxaanu sheegaynaa iyo maamulkeeda sheegaynaa hadaa samafalka waxaanu u qayla dhaaminaynaa in dooxana laga qabto mid awood naga awood badan weeye mid aanu qabanayno ma marka waxaanu codsanaynaa oo si u codsanaynaa in dooxan wax laga qabto intii gaabiyanka haydeerna loo qabtay biyuhu korkay ka dhaafaya in la kordhiyo sare loo qaado ayaanu doonaynay oo kuwan dambena wax nagu soo kordhiyaan tii hore xashiishkii ay keentay waa noo yaala nagamay qaadin waxaanu leenahay oo aanu dawladda ka codsanayna oo maamulka gobolka ka codsanayna horta kanina laga qaado meeshii deedna laga hagaajiyo xashiishkan gudaha horta laga dhigo marka hore magacaygu waxa weeyaan injineer Maxamed Axmed Ibrahim waxaan ahay agaasimaha guud ee UNBBC ama HNAU wakiil waxaan ka ahay midowga Afrika halkan waxa ka muuqata baahi aad u ballaaran oo gobolkan Togdheer saameyn ku yeeshay gobolkan saameynta uu ku yeeshay togan leeyahay Togdheer waxa weeyaan saameyn aad u xoogan oo xagga bulshada iyo baac mushtariga iyo horumarka aad saameyn ugu yeelan doonta dooxan waxa uu muuqdaa inuu burburin doono guud ahaan gobolka Togdheer intii baaqani ka soo yeedhay dadka ka agdhow dooxa weyn ee magaalada Burco ayaa isagoo mid ay guud ahaanba ugu baaqayaan xukuumadda Soomaaliland iyo hay'adaha caalamiga ah si degdeg ah wax looga qabto dooxani oo ay sheegeen inay halis ugu jiraan guryaha ku agdhoweynay dumaan waa Maxamed Ibrahim Xasan Maxamed British Television caalamiga Royal Burco.